hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ciidankiisa maamulkiisa iyo dadkiisa u jiheeyay inay iska dulqaadaan kooxda Daesh oo ku dhuumaalaysanayay waqti fog buuraha Almiskaad. Dagaalkan ayaa bila dhaaf iyadoo la soo warinayay in ciidanka maamulka Puntland ay goodban ay ka saareen kooxda Daesh. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda Mareykanka ayaa dhowr jeer duqeyn ka geysatay buuraha Almiskaad intii uu socday dagaalkan. Puntland waxay dagaalkan qaaday iyadoo uu jiro khilaaf siyaasadeed kala dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan colaad shakhsiyeed ku dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh iyo hogaamiye Siciid Cabdullaahi Deni. intii uu dagaalkan socday wax gurmad ciidan ah, saanad dhaqaale ama taageero midna kama helin Puntland dowladda federaalka ee Soomaaliya. laakiin madaxweyne Xasan Sheekh ayaa khudbadiisii furitaanka kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ee maalintii shalay wuxuu sheegay inay bixinayaan gurmadkii waajibka ku ahaa in ay dowladda dhexe ayna magacaabi doonaan guddi arrintaasi ka shaqeeya oo garab istaaga dagaalka ee wadda Puntland. hadda Xasan Sheekh wuxuu u arkaa saddex arrimood kuwaas oo la aaminsan yahay in ay ku qasabtay farintiisii shalay. mid koowaad waa sida ay Puntland ugu sii siqayso inay ka adkaato kooxda Daesh iyadoo xitaa aan xabad baskoolad ah ka helin dowladda federaalka Soomaaliya. midda labaad waa in dowladihii waaweynaa ee caalamka sida Mareykanka iyo Ingiriisku in ay mudnaanta koowaad ay ka dhigteen dagaalka Puntland ay kula jirto kooxda Daesh oo ay aad ula shaqaynayaan haatan iyaga oo indhaha ka xirtay waxa ka socda dowladda federaalka. iyo midda saddexaad oo ah inuu Siciid Cabdullaahi Deni si weyn kor ugu soo kacay siyaasad ahaan iyo shacbiyad ahaanba. saddexdan arrimood oo isbiirsaday ayaa la aaminsan yahay in ay madaxweyne Xasan Sheekh ku riixayaan inuu wax ku darsado dagaalka ka socda buuraha gobolka Bari. haddaba su'aasha dad badan isweydiinayaan ayaa waxay tahay Siciid Deni jid ma siin doona Xasan Sheekh oo mowqifkiisa ma u dabici doona fariinta ka timid madaxweyne Xasan Sheekh maalintii shalay. dadka sida dhow u yaqaan hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waxay aaminsan yihiin inaan degdeg wax badan ayna isku bedeli doonin. Siciid Denina waa fahansan yahay siduu Xasan Sheekh u dhibsanayo in ay Puntland qaadatay mudnaanta beesha caalamka iyo saameyntii tabneed ee Xasan Sheekh ku yeelan doono haddii ay Puntland ka adkaato kooxda Daesh, isagoo diiday xaqa ay ku lahaayeen dowladda dhexe ee Soomaaliya. haddaba sida u aragtaa adiga?